hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeeynayaa 26 Juun ee maalmaha xorriyadda. Waxaynu ku jirnaa isbuuca xorriyadda. Mar allaala markii la maqlay 26 Juun, ruuxa Soomaaliga waxaa ku soo dhacday sida ugu quruxda badan ee loogu dabaaldego magaalada Muqdisho. Laakiin maanta waxaan idin wadaa magaalo aan Muqdisho ahayn oo xitaa Soomaaliya aan ahayn oo loogu dabaaldegay si aad iyo aad u qurux badan. Falan dhamaysa muuqaalkan. 26 Juun waa sidee xaaladda Kampala? Sidee ayaa loogu dabaaldegay 26 Juun maalinta xorriyadda Soomaaliya? waxaan joognaa magaalada Kampala, gaar ahaan beerta boqorka meesha loo yaqaano. waxaan idin tusi doonaa habka quruxda badan ee loogu dabaaldegay Kampala maanta. halkaas sida arkaysaan halkaas waxaa muuqaalo ku duubanaya TV-ga qaranka qaybtiisa Kampala oo gudbinayo way badan yihiin dadweynaha dhan waxay isugu soo baxeen maanta inay muuqaaladooda samaystaan. qof walba sawir uu galo, qof walba bartiisa waxaa ku xiran dad ama WhatsApp ha noqdo, meel walba qof walba wuxuu rabaa dadku inuu holo hortago waxyaalo qurux badan. inkastoo waxaa idin leeyahay hambalyo, Happy Independence Day oo maalinta xorriyadda aan qaadanay. dhammaan Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogtiin waxaa idin leeyahay hambalyo. mid kale maxaa iga soo dhaw mutaqaana ilaahu Soomaalinimada igu dil sababtoo ah ilaahu Soomaalinimada iyo hanoo waynin waa sheekada. hadduu ilaahay Soomaali ka dhaliyo anaf intaas ka badan. sababtoo ah markaa soo dhax galay beerta albaabkeeda waxaa arkay adi bilow ilaa iyo dhamaad calankii isla socdo yar iyo weyn loogu soo labisay quruxda ugu maleyn kartid. Happy Independence Day adin leeyahay. Kampala waxay ka mid tahay markii laga soo tago Soomaaliya, Muqdisho markii laga soo tago wadanka dibadiisa waxay ka mid tahay Kampala wadamada sida ugu quruxda badan loogu dabaaldego xorriyadda 26 Juun. Ana waxay ii tahay xorriyadda ugu horreysay aan ku dabaaldegay 26 Juun magaalada Kampala. laakiin sida ay tahay masha Allah waxa isleedahay dadkan Muqdisho ay joogaan.
caruur iyo ciroole maanta waxaa lagu soo labistay dharka dareyska calanka iska garanaysiin meel walba ka muuqda maanta kale la isku tilmaamo xitaa soo sida awgeeda dad badan waxay isweydiinayaan aad maxaa ku diidina ku soo labistay ani waxa ii diiday umaanta la galay sababtoo ah hadda aan kula hadlaa xaafadka ma imaam sa soo socda safar ka meel iska yaro gobol meeshaana beerta la iska imaado ayriso